waxaan qormooyin sameynayay laga soo bilaabo 1994 inta badan waxaan wax ku qoraa afkayga hooyo ee Soomaaliga walow mararka qaar wax ku qoro afafka qalaad sida afka Ingiriiska iyo Carabiga laakiin qoraal ayaan joogay maqal iyo muuqaal inaan sameeyo weli uma aanad gudbin hadda waxaan go'aansaday inaan arrintaa wax ka bedelo oo qormooyinka aan sameeyo u bedelo maqal iyo muuqaal ama video waxaa sidoo kale qorshahaygu yahay inaan hal mar u wada bedelo muuqaalada qormo kasta ugu yaraan af Soomaaliga iyo af Ingiriisigaba micnuhu waa in qormadiiba aan ka sameeyo laba muuqaal oo midna af Soomaali yahay halka kan kalena af Ingiriisi yahay waxaan qorsheynayaa inaan ku wada daabaco dhammaan ciwaanadayda baraha bulshada sida Facebooka, Twitterka, Instagramka iyo xitaa Snapchatka oo dabcan kala dhiri noqon doona si gaar ah waxaan muuqaalada noocooda dhaadheer ku daabici doonaa laba ciwaan oo aan ku leeyahay barta YouTube-ka kuwaas oo kala ah Cabdi Boqor oo ku soo baxa af Soomaaliga iyo Cabdi Boqor oo ku soo baxa afka Ingiriisiga si aan u gaaro ummado badan oo aan fahmin af Soomaaliga oo Ingiriiska igala socon doona waxaa sidoo kale jira in badan oo aan akhrinta jeclayn oo ka doorbida daawashada maqal iyo muuqaalka kuwaas oo aan ku kasban doono muuqaalada aan qormooyinkayga ka sameeyo ee weliba luqadaha kala duwan ku soo bixi doona hadbiyo saabadaas ayaa looga dhargaayay si aan arrintaa u xaqiijiyo waxaan bilaabay duus ku saabsan sida loo sameeyo muuqaalada loo jarjaro dadka loo saaro iyo qalabaynta xafiiskii shaqada lagu fulin lahaa qorshuhu waa in hawsha ay qabtaan shaqaale loo carbiyey loona xil saaray anigoo markii duruuftu qasabtana ama iga qabatana ku soo boodi kara shukaanta maadaama aqoonteed yeeshay Allah maxadii ah inaan helay macallin Soomaaliyeed oo khibrad fiican u leh aadna iga qabtiri kara waxaan ku dadaali doonaa inaan marka hore sidii caadi ahaydba diyaariyo qormooyin iyadoo u sarreyso cilmiyeysan maangal ah tarxayo wata kadibna loo bedelo maqal iyo muuqaal waxaan ka fogaan doonaa inaan ku biiro baaqayaasha baraha bulshada iyo nasiib darro dhalinyarada wax kasta iyo si kastaba viewska ku raadiya si ay u helaan shilimaad maadaama Allah arrintaa iga kaabay daawadayaal dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo